gobolka Dr. Ismaan oo horena u ahaan jiray wasiir maantana u yimid in hawl ka qabto tukarraq saraakiisha ciidamada dadweynaha reer tukarraqeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halka aan joogno madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhagax dhigay waqtiga ciidanka qaranku halkan wuxuu joogaa muddo 5 bilood 8 bishii koowaad buu soo degay muddada ciidanku halka yimid ilaa hadda wadada hadda 6 kiiloomitir la dhisayo MCH kan iyo deer iskuulka loo sameeyay ayaaba hirgalay mashaariic kalena way soo socotaa waxaanu ku faanaa haddaan Soomaaliland nahay inaan dhibaato keenin tukarraq laakiin se horumarkaan keenay muddada yaraan joognay 2 sano markaan joognana tukarraqeen nooc kala noqon doono wax badan aan ka bedeli doono ilaahay hadduu idhaaho oo naftu gaarsiiyo dadku waa dadka yagii dhibaato uma keenano waan uga lex jeclo weynahay kuwa halka jooga intaasoo sano joogay aan waxba ka qaban annaga uga lex jeclo badan abahana jeclaadaan bayana jeclana annagu waxaan aaminsanay dadkaygana yihiin lex jeclana dadkayga ka qabna wax weyn waanu qaban doonaa ilaahay hadduu idhaaho halkan waxa uu harsan qalabayntii waa runtood waa meel muhiim ah oo deegaanku ku badan yahay sariirihii umulaha MCH gaadhigii loogu ambulance intuba waa in aad loogu baahan yahay in loo sii ballaadhiyo oo ilaa dhakhtar loo gaarsiiyana way u baahan yihiin marka loo eego dadku sidoo aagan ugu badan yahay ilaahay hadduu idhaahdo tamarta dawladdu waxay noqotaba wadadana 5 kiiloomitir kharash ku baxayana wax yar ma 5 kiiloomitir kiiloomitirkiiba intaasoo boqol intaasoo lacag ku baxaysa $560,000 baa ku baxaya 5 kiiloomitir ee aragteen waa lacag badan sidaas ay dawladdu ugu dadaalaysaa dadka annaguna waan ku dadaalnaa waxaan leeyahay ciidanka halkan idigu yimid horumar buu keenaya magaalooyinku soo maray laga soo bilaabo wadako ilaa hadda halkan hadaan joogno magaalo aan ku taraqeen oo ku ballaaran ma jirto waayo intaasoo shaqaalaha mushaharkoogii gelaya magaalooyinku way ku dhismeen intii la soo maray tukarraqina way ku dhismi doontaa ilaahay hadduu idhaahdo oo waxay arki doontaa horumarka ayaa arki doontaa dhismo badan baa ka bilaabmi doona wax badan baa ka bilaabmi doona ilaahay hadduu yidhaaho sanadkaas intaan dhammaan wax weyn bugaadhay midna ayaan lagu riyoon Puntland ku soo noqon mayso dadka halkan marba la qaxinayo ee wax la leeyahay taasi ka go'a Puntland inay ku soo noqoto halkan ka go'a laakiin annagu horumar baan siinaa wax dhibay idii keen mayno khamri idii keen mayno fusuq idii keen mayno dadku lahaaba ku yarna meesha keen waxaan rajaynayaa inaad horumar in iduguna aan nala garataan kana saartaan meesha Puntland inay timaado iyo waan soo soconaa ka sii yaacayo waa sii qaxayo waxaas waa ruya la yiraahdo